salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha gobolka Maroodijeex iyo degmada Salaxley ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay una taageeray muddo kordhintii labada sano ahayd ee xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi loo kordhiyay isla markaasina ay u sameeyeen golaha guurtida Somaliland sidoo kale waxay sheegeen in la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland ku nabad iyo canaamaashay waana kuwan iyagoo ka hadlaya arintaasi iyo arrimo kale badan waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo shirkan jaraa'id u qabanay inaan soo taageerno mug iyo laxaad la siino laamaha sharci dejinta guurtida iyo laamaha kale sharci dejinta waxaan ku taageeraynaa muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ay u sameeyeen labada sanadii u kordhiyeen waanu taageersanahay aad iyo aadna waanu soo dhaweynaa waxaan leenahay khayr Allah isiiyo inta waxaan raacinaynaa nabadgelyada inaga ku nool iyadu lagu noolay ku nool waa inaynu wada ilaashanaa xafladan waxa loogu talagalay in maxay ahaydee lagu soo dhaweeyo muddo kordhinta madaxweynaha lagu soo dhaweeyo lagu go'aamiyo inta yada odayaasha halkaas ugu tagay waanu soo dhaweynaynaa muddo kordhinta madaxweynaha waanu soo dhaweynaynaa waxaan u arkaa in ay ku xidhan tahay nabadgelyada dadka iyo dalka iyo diintuba sida awgeed waanu boogaaginayna waana soo dhaweynaynaa halka waxa weeyii maanta wax kale oo waa muddo kordhinta madaxweynaha wixii la sii raacayana waa nabadgelyada horta madaxweynaha halkii kuwii hore loo kordhin jiray buu taagayo waan taabacsanay muddo kordhintiisa halkii kuwii hore loo kordhin jiray buu taagan yahay waa la heer waa tistoorka waa la tistoor waan raacsanay hadii loo kordhiyay xaqna waa u leeyahay waxaan taas waa ta madaxweynaha qodobka kale oo nabadgelyadu waa naftaada inanidaha jabin waa wada dan nabadgelyadu tan wax ku kursi kuma filla kursiga midun baa fuula laakiin noloshooda ay ka midaysan tahay waa nabadgelyada Soomaalida waxay ku maamahdaa wixii umusha u dana ilmahana u dana mar haddii dalka ay doorashooyin degdeg ka dhici waayeen dalku deefooda noqon maayo waxa qasaba in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddo kordhin loo sameeyo muddo kordhinta loo sameeyay boqolkiiba boqol waanu soo dhaweynaynaa sababtoo ah danta dalka ku jirta danta dalka ayaa ku jirta waanu soo dhaweynaynaa waxaan isugu nimid halkan inaanu ka hadalno arrimaha nabadgelyada iyo muddo kordhinta doorashada loo sameeyay madaxweynaha waxaanu leenahay waddanku shuruuc buu leeyahay shuruuc baa hagta iyadaa lagu soconayaa sharciga waddanka marka xaaladu timaado muddo kordhinta waa la kordhinayaa markay duruufihii eegeen odayaasheenu iyo golahii guurtidu waxay soo saareen in madaxweynaha loo kordhiyo waanu qaadanay waana sharci waana la ayidaynaa maadaama uu ka soo baxay golihii sharci dejinta ee guurtideenu ku soo dhaqnayn waanu ayidaynaa waanu qaadanaynaa horta mowqifkan aynu iskugu nimid waxa weeyaan taageerista muddo kordhinta madaxweynaha loo qaaday weeyaan madaxweynaha guurtiduna way kordhin inaguna waynaan kordhin xagga ilaahay baa looga kordhiyey dalka dankiisu nabadgelyada iyo kolba ciddii kursiga ku fadhida sidii wax looga qaban loo weeyaan danta dalku muddadaa la kordhiyey waa yar tahay waanu ogol lahay waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ninkii ka xunow waxba ma kordhinaysid khalkhal ma baahnin dhib uma baahnin intii maalintii dhaweyd meesha gaadhay aan ugu furan madaxweyne soo maray Somaliland ninkii ugu horeeyay Cabdiraxmaan Tuur mooyaane ninaan loo kordhin afartii madaxweyne ka horeeyay ma jirto
colaad iyo cirfu waxba laguma doono dagaal waxba laguma doono wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay baa la yidhi qaar horaa ku dhintay oo maanta xabaalahoodii casiin cid kale oo maanta inaga raacdana ma doonayno waxaan leenahay kuwa qaata oo labada sannadood 9 bilood baa taageerteen oo komishinku keenay sanad iyo bilo yar weeye waxa raaca sanadka iyo bilo yaryarna kiriinka ninka u samra yaa ka qanaad liqas sanadka iyo labada 3 bilood maxamed wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa